ooy kuwa isaaq jingadahood iyo magaaladooda asaa ugu baashaalana yaa Soomaali weynay abar jeclooy siyaac iyo siyaac kala joojiya dhulkaaga dad difaacan karin wala soo yaaco inaadeer ragna ugaaskii guud ee beesha ciise oo wata tuutaha ciidanka militariga lagu yaqaano iyo asgar hubaysan ayaa maanta lagu arkay buurta city ee dawlad deegaanka Soomaalida wuxuu galbinayay boqolaal ciidamo ah oo doonaya inay dawlad deegaanka ka soo tallaabaan una gudbaan dhinacaas iyo gobolka Awdal waxaan ku soo gudbin doonaa tirada ugu dambeysay ciidamadii galay dawlad deegaanka ka soo baxay ee galay gobolka Awdal iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ka jiray Habaas iyo Heemaal sidoo kale waxaan ku soo gudbin doonaa suldaanka guud ee beesha Samaroon oo qarka u saaran inuu wada hadal la bilaabo beesha ciise suldaanku waxa la sheegay inuu ka quustay inuu hub iyo taageeraba kale ka helo Somaliland iyana faahfaahinta ayaan ku siin doonaa waxaan kale ku soo gudbin doonaa Garaad Cabdullaahi Garaad Saleebaan oo wata ciidamo ka tirsan kuwa maamulka waqooyi bari ayaa goordhow gudaha u galay magaalada Buuhoodle isagoo sheegay inuusan u dul qaadan doonin daandaansiga Puntland ay ka bilowday gobolka Cayn ilaa gobolka Sanaag qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaalidiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada hadeeta markii kuugu horeysayna ku soo biir waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacnay ee soo dhawow daawade qodobkeena ugu horeeya ayaan daawadayaal dabcan ku bilaabayaa ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa Maxamed oo gashan tuutaha ciidanka lagu yaqaan militariga ayaa goordhow lagu arkay buurta city oo ah halka loo asteeyay dhaqanka maamulka ciisaha xeer ciise in lagu soo bandhigo ugaasku dabcan waxaan moodaa in uu iclaaminayo dagaal hor leh oo lagu qaado beesha Samaroon muuqaalo kooban oo goordhow helay ayaa waxay muujinayaan ugaaska oo xiran tuutihii lagu yaqaanay ciidanka ciisaha kuwaas oo uu khudbeynayay cutubyo ka tirsan ciidanka beesha ciise oo la raba inay gudaha u galaan gobolka Awdal shalay waxaan idin la wadaagay muuqaalkan hadda aad daawanaysan kiisa ku xiga in boqolaal ciidamo ah oo ka tirsan beesha ciise ay gudaha u galeen gobolka Awdal ciidamadan hadda aan idin sheegayana waa ciidamo kale oo hor leh oo la aaminsan yahay dabcan in ay qayb weyn ka qaadan doonaan soo afjarida beesha taagta daran ee Samaroon xogaha la helayo waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqa xoog leh ee ka socda deegaano fara badan oo ku yaala jihooyinka waqooyi iyo koonfur ee gobolka Awdal ay yihiin kuwa saramaray iyadoo saacad walba laga cabsi qabo in dagaal halkaas ay ka dhacaan hadii uu ugaaskii guud ee beesha ciise xirtay tuutihii oo uu ciidankii la dardaarmayo ciidankii la qadeynayo ciidankii rasaastii u qaybinayo meel ka dambaysa oo hadda laga hadli lahaa ama nabad laga hadli lahaa ama xasilooni laga hadli lahaa ma jirto sababta aan sidaa ku leeyahay ayaa waxay tahay waxa laga cabsi qabaa hadii xiisadu sidan ay ku sii socoto inay wax badan isbedelaan oo la arki karo isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah iyo dagaal qaraar oo halkaas ka dhaca xubno saraakiil ah oo aan la hadlay oo ka tirsan Somaliland waxay sheegeen in ay si weyn uga xun yihiin in ugaaskii guud ee beesha ciise uu maanta tuutaha qaato aniguse waxaan leeyahay hadii qofka loo diido in dhaqankiisii haybadiisii iyo wixii uu ka dhaxlay dadkoodii kale uu soo bandhigi waayo dabcan de xaq u leeyahay inuu isdifaaco ugaaska guud ee beesha ciise xogaha la helaya waxay tilmaamayaan sidaas si lamida inuu diiday inuu wax wada hadal dambe ah la galo beesha Samaroon ama oo xataa wada hadal la galo Somaliland isagoo ku eedeeyay dhinacyadaasina inay yihiin kuwa ka shaqeynaya in dana iskhilaafsan ay ka horiyaan gobolka xogaha la helayo waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay ay jireen xiisado culaadeed oo si weyn gobolka u saameeyay kuwaas oo la aaminsan yahay hadii xiisadu dabcan ay sidan ku sii socoto inay wax badan isbedeli doonaan oo la arki doono isku dhacyo waaweyn oo dhanka ciidamada ah oo dhinacyada dhexmaray xubno kamida beesha ciise waxay sheegeen inaysan iyagu xilligan diyaar u ahayn in ay qashqashaad sameeyaan calaashan in ay deegaano aysan iyagu lahayn inay qabsadaan xilligan diyaar uma aha laakiin xeerkii buugga ciise in la soo bandhigo waa muhiim waa geedna ka go'an ayuu yiri mid kamida ragga la shaqeeya qaar kamida isimada dhaqanka beesha ciise
xogaha la helayo sidoo kale waxay tilmaamayaan in xiisadan hadda halkaa ka jirta ay tahay mid sarrayso oo laga cabsi qabo in la arko isku dhacyo dhanka ciidamada ah haddii aan si degdega xal loo helin xalku wuxuu ku jira ayaa la leeyahay in beesha la yidhaahdo samaroonku miirku u soo laabto islamarkaana ay joojiso gardarrada iyo dulmiga ay ku hayso beesha faca weyn ee ciise haddii taa la heli waayo wuxuu yidhi mid ka mid a odayaasha dhaqanka aan la hadlay in la qaadi doono tallaabooyin dheeraad ah oo dabcan xaaladda uga sii daraya taasoo dad badan aaminsan yihiin inay noqon doonto isku dhacyadii ugu dambaysay oo aysan cidno faa'iido ku qabin marka laga hadlayo xiisadaha halkaasi ka taagan ugaaska guud ee beesha ciise waa nin horta sidaan anu ku aqaano dadna ay ii sheegeen waa nin marka qadiyadaha laga hadlayo si weyn ugu dhegan ugaaska beesha ciise wuxuuba ka xanaaqsan yahay sidee baa loo leeyahay horta xeerkii buugga ciise lama soo bandhigi karo xeerka buugga ciise waa mid dhaqan ah waa mid ku suntan wada dhalasho waa mid ku suntan is-ixtiraam waa mid ku suntan walaaltinimo waa mid aanan yacni cidna ka hor imaanayn cidna aan u xaglinayn taa beddelkeedana waa mid dhexdhexaada oo xataa qaramada midoobay waad ogtihiin in xataa unisef ay aqoonsatay oo ay sheegeen in unisef uu xeerkan yahay midka ugu faca weyn ama ugu weyn oo ay beel isticmaasho marka laga hadlayo xeerarka soomaalidu isticmaalaan ma ogi haddii beesha samaroon iyagu ay diidan yihiin in xeerkan ay ku jiraan waxyaabo kale oo aanu aana arkin laakiin xaqiiqada marka laga hadlo xeerkan iyo sidoo kale siduu ku bilowday iyo siduu hadda yahay yani anugu aan akhriyey wax dhibaataa oo weyn igama muuqdaan wixii kusoo kordha saaxiibayaal weynu arki doonaa markana suldaanka guud ee beesha samaroon ayaa waxaan shalay idiin sheegay inuu ka baxay magaalada hargeysa waa magaalada boorama xogaha iyo wararkaan hadda helayna waxay tilmaamayaan in suldaanka guud ee beesha samaroon hadda qarka u saaran yahay inuu wada hadal la furo beesha ay ishayaan ee la yidhaahdo ciisaha xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in 48 saac lasoo dhaafay ay jireen aragtiyo la xiriira in laga cabsi qabo in dagaallo ay ka dhacaan gobolka oo weliba xaaladdu ay gaarto meel aan waxba laga qaban karin suldaanka guud ee beesha samaroon tiro dhowr jeer ayuu dabcan la hadlay taliyaha militariga Soomaaliland tiro dhowr jeer wuxuu la hadlay taliyaha ciidanka lugta ee Soomaaliland ugu dambeyntii wuxuu la hadlay madaxweyne Ciro shalay wuxuu la kulmay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland dhammaan waxaa la sheegay Soomaaliland inay si cad u sheegtay inaysan xilligan doonayn inay ku dhex milanto khilaafaadka iyo siyaasadaha isdiidan ee gobolka ka jira oo ay dad badan aaminsan yihiin haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto inay wax badan halaabi doonaan oo wax badan ay isbedeli doonaan xaajada markaa sidaa idin leeyahay xogaha iyo wararka la helayo waxay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhanka ciidamada ah si weyn looga dareemayo waqooyiga iyo koonfurta gobolka Awdal gaar ahaan deegaanada xeebaha ku teesan oo hadda la leeyahay xaajadoodu faraha ayay ka baxaysaa haddii aan si degdeg ah xal loo helin xubno aan la hadlay qaarkood waxay ii sheegeen in xaajadu hadda siday ku socoto haddii ay sii socoto dabcan wax badan isbedeli doonaan oo la arki doono isku dhacyo ka waaweyn kuwii hore loo ogaa iyadoo dhaqdhaqaaq xoog leh hadda laga dareemayo tuulada la yiraahdo Heemaal iyo tuulada la yiraahdo Habaas oo dabcan maalmihii la soo dhaafay ama labadii toddobaad ee la soo dhaafay siyaabo kala duwan ay dagaal uga dhaceen inta badan Djibouti baa lagu eedeeyaa dagaalada halka ka dhaca laakiin xaqiiqada markii la aado dadka dagaalamaya ee qoryaha wata ee deegaanadooda difaacanaya waa dadkan ciisaha la yiraahdo Djiboutina lama safana يعني وانين أنا ما أنت كويري ديجانا أدقنتين إيجا جور إذا ديجانا حق له أما واني ما أنت إن دقن كي إذا كأيله هذين أما دقن كي فرع تفرع أو أبا أبا أكسر لحشين ما صوب بندقة سان قف كاسوح دريم يا طبعا إنه أنتو دقن كيسي وأنا أرنت هذا ما أنت عيسو أي أدق على ما يعني ولا سليكر ودد هذا فلي qodobkan ugu dambeeyana garaad Cabdullaahi garaad Saleebaan oo wata boqolaal ciidamo ah ayaa la soo warinaya inuu maanta galay magaalada Buuhoodle garaadku maalmihii la soo dhaaf waxaan idin sheegay inuu si weyn uga carooday daandaansiga xargaha goostay ee dawlad goboleedka Puntland xubno aan la hadlay qaarkood waxay tilmaameen in ugaaska garaad Cabdullaahi garaad Saleebaan uu si weyn uga carooday ficilada ay ku dhaqaaqeen ciidanka dawlad goboleedka Puntland gaar ahaan BMPF kuwaasoo bilihii la soo dhaafay qashqashaad iyo amni darro ka waday magaalada Buuhoodle ee gobolka Awdal waa gobolka Cayn xogaha la helaya waxay tilmaamayaan in haddii xiisadu sidan ay ku sii socoto ciidanka garaad Cabdullaahi garaad Saleebaan iyo sidoo kale ciidamada kale ay isku dhici karaan oo la arki doono isku dhacyo weyn oo ka weyn kuwii hore loo arkay oo ah
in halkaasi dagaallo qaraar ay ka dhacaan sida ay tilmaamayaan xogaha iyo wararka aan helayno. waxay ku soo kordha saaxiibayaal wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tebin doonaa. haddii tahay markii kugu horeysay kusoo biiri dar heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno. soo dhawow daawade, maalin wanaagsan, sharaf iyo karaamo. muuqaalka inoo lay gare haddaad nala dhammaysatayna aad baad u mahadsan tahay.